haddii aynan maanta ka dhiidhiyin oo aynan magaaladan aynaan tusin waxaynu nahay maalin walba gabadh ayaa lala baxaya haddii ay barakaatu waa mar kale arrin dhibaataysanaya ina haysata maaragtay arrinta aan maanta la murugeysanahay gabadheena sida xun loo jirdilay maaragtay sida xun loo dhibaateeyay haddii aynan maanta ka dhiidhiyin oo aynan magaaladan aynaan tusin waxaynu nahay maalin walba gabadh ayaa lala baxaya haddii aynaan tusin Soomaali inaan meeshan anaga dad nahay oo maanta maalin walba maaragtay dadkeena haday dukaamada baxaan ama wax soo iibsadaan ama shaqo aadaan intii banaanada loo galo maaragtay la jirdilayo wallahi billahi guriyaha hadda inoogu soo galiya maalinta dambe guriyaha intana loogu soo galo oo la wato ayayna laga hadli karin waraawo ragga Soomaaliyeed waxaa jira qaar damiir layaal ah oo damiir balahayn oo damac wax alla waxay yihiin jirin laakiin nin walba wuxuu dhibaatada ogaanayaa maalinta ay gurigiisa timaado maanta haddii aydan ka dhidhiin oo aydan ka xumaanin dhibka walaasha haysta bari gurigaaga iimaanaysa yaa ka naxaya ilaa shalayba wad ku wiirsanaysa qofka walaalka ahay waxaan idin dhihi lahaa walaalayaal dadkeena Soomaaliyeed maaragtay waa inaan maaragtay aan isu dhaga nugulaana dhul shisheeyaan joognaa waa inaan maaragtay dadkeena aan ilaashano oo aan hablaheena iyo wiilashii gabdhaha ilaalin jiray sharaftooda iyo sumcadooda ilaalin jiray ee dhibaatada ka ilaalin jiray xagee joogan kuwan iyagaaba horseeda miya talabaad damiirka idin siiyay inaad qof walaalka ah Soomaali kula dhiig iyo dheecaan kula wadaaga qof gaala u shirqoosho damiirka ku siiyay muxuu yahay dadnimada kugu jirta maxay tahay ilaahay idin abuurtay inta ka cabsataan dhibaatadan aad isku haysaan idinka is cunaya Soomaali idinka is cunaya dhibaatada iska daaya horta war baa soo kordhay warkaas maaragtay inta badan lagu wareersan yahay waa video marka ay dukaanka soo galayaan oo maaragtay dukaanka ay ka adeeganayeen ama ay wax ka iibsanayeen ay soo galayeen gabadhan soo galayeen waad arkaysaan laba gabdhood ayaa istaba socda gabadha ka dambaysa facekeedu wuu xidhan yahay oo waxay xidhan tahay face mask kadib ninka ayay fiirisay ninkiina maaragtay wuu fiiriyay kaameradana inuu kaco ayuu maaganaa laakiin kaamerada intaas lagu jaray oo shotkaas laga soo jaray haddaba waxaa la leeyahay gabadhan ayaa ka dambaysa shirqoolka gabadhanna dadkeedii waxay leeyihiin wayba naga maqan tahay oo anagiiba gabadhan way naga maqan tahay haddaba okay hadday ay maqan tahay gabadhani oo gabadhan iyadana la afduubtay oo ay tahay shakhsi la afduubtay oo iyadana la kaxaystay ay tahay maxaa iyada loo soo dhigi waay waa la jirdilay gabadhii la socotay waad ka horeysa facekeeda si fiican loo arko waa la jirdilay sidaas aad aragtaan ee maaragtay qof waliba ishiisu markay qabato uu maaragtay uu muraad dilaacayo uunan damiir hadduu leeyahay uunan maaragtay adkaysan karin ayaa loo soo galay haddaba haddii maaragtay gabadhii ay la socotay xagee jirtaa iyada hadday arinku sidaa tahay oo faamilkeedu ay leeyihiin way naga maqan tahayna ay jirto markii gabadhan la baafinayay oo inay luntay la baafinay gabadhaas xilligaas way maqan tahay la lahaa iyagu maxay gabadhooda u baafin waayeen oo ay u dhihi waayeen gabadheena la maqan ama gabadheena laga maqan way taas waxay ku cadeynaysaa waxyaalaha qarqarsoon ayay ku cadeynaysaa haddaba dadka Soomaaliyeed walaalayaal yaan isku ciyaarin gabdhaheena idinka cadowga afka u gelinaysaan idinka xumaatada iyo waxaan ku beeraysaan marka haday wararkaasi oo horta Allahu a'lam bila aadan baan nahay ma dambaabi karno gabadhiina meeshii joogto ma dhihi karno xaggaasii joogtaa mana dhihi karno iyada shirqoolka ka dambeysay sababtay tahay anaga point aan taabano waxaan ku haynaa clipkaas aan ku haynaa iyo hadii loo sii raadraaco familygeed maxaa yeelay familygeedu waxay sameyn lahaayeen isoo sheeg way baafin lahayn sida gabadhan dadkeedu u baafinayeen oo kale sidoo kalena
jirdilkan iyo dhibaatadan loo geystay markii gabadhan la lahaa waa la qabtay waa la sheegi lahaa inay gabadh kale la socoto oo waxaa la dhihi lahaa 2 gabdhood baan haysanaa waxaasaan u baahanaa nimanka waxay sheegteen baa la dhahay lacag 5 milyan malaha waxay isleeyihiin Soomaalidu hantiyo adduun bay haystaan sidaa darteed bay ugu soo dhigteen inay gabdhaha iyo maaragtay dhalinyarada iyo dadkaba ay afduubtaan teeda labaad waxaa soo baxay oo la leeyahay waxaaba jira dad barfuunka ku buufinaya oo ku dhahayaan barfuunkan hoo hadhowna jawigu kaa qasmayo meelaad joogtay aad garanaynin ha lagu kaxaysanayo hadhowna madax furasho iyo dil iyo jirdil lagu dambaysiinayo marka walaalayaalow aniga marka labaad soo fadhiistay waxaan u soo fadhiistay dhibaatada dhacsan waan ognahay yeynaan ka aamusin aan mudaharaadno aan baxno guryahooda aan ugu galo aan gubno suuqa xunka ay maaragtay dadkeena ku aftuubanaya aan ka gubno maalin walba ma dhibaataan u adkaysanayna shalay baa gabadh Mombasa lagu waayay meydkeeda banaanka lagu soo tuuray maanta tani jirta daraad baa nin aqoon-yahan meesha lagu dilay wax ka hadlayo Soomaaliya damiir lama jiro miya damiirka dhan way idin ka dhintay laakiin reer hebel waa u taqaanaan sidii loola dagaalamo aan iska rab qabsano aan u dhiidhino gabdhaheena la dhibaataynayo iyo dadkeena la dhibaataynayo maanta gabdhahay taagan tahay berina wiilashay tagaysaa qof walba caruurtaa la guranaya hadda kadib iskuulaadada ayaad ilmaha geysan waayi doontaan dugsiyadaad geysan waayi doontaan intay arrintu dhowdahay maanta intay arrintu dhowdahay 2 gabdhood bay maraysaa intay arrintu dhowdahay hal isqabto aan iska qabana dadkan waa dad inagu dhex jira inoo shaqaynaya xaaladaheena og marxaladaheena og wax walba og oo talaabo inoo la socda anagana waa inaan iska qabanaa ma waxaan ku jirnaa marxaladan cabsiga iyo inaan social media soo dhigno oo dhahno oo ilaahay naxariista iyo inaan maanta oo dhan qof dhibaataysan intaan hees gadaal ka saarno aan dhahno akuye nabarku gaadhaan boo kula qaba haddii aan kula qabo oo aan isla qabno dhibaatada waa inaan ka dhidinaa waa inaan banaanka u baxnaa waa inaan tusinaa inaan u nahay dad wadanka degan wax ku soo kordhiya canshuuraadadiisii dhismihiisii wax walba ku soo kordhiya inaan u nahay waxba mayna ahaan jirin Soomaali bay wax ku yihiin waa inaan tusnaa waxay iyagu yihiin hadda wayna ka ayna daarabtaan inay maaragtay shacabkeena iyo inagii kolba mid la gurto oo qof walba maalinta iyadoo isagu dhibaatada ku dhacdo uu damqado laakiin maalinta ay walaalkii ku dhacdo uu wax damiiro lahayn taasi ma aha wax maaragtay suurtagelaysa waxaan indhehi lahaa walaalayaalow aan maaragtay iska qabsano aan xumaatadan ka hortagno aan shacabkan maaragtay la dhibaataynayo iyo dhalinyarada la dhibaataynayo aan ka hortagno waayo waxaa dhici doonta bari in guryaheena lagu soo galo in iskuulaadada la tago oo ilmaha laga aftuubto in wadooyinka loo istaago caruurta la aftuubto oo hadhowna lagu xujeeyo lacagahaas oo kale lacag waa bixin kartaa lacage ilmahaaga iyo banaanka mid loo soo tuuray marka arinkaas intayna dhicin waa inaan ka digtoonaana waa inaan u dhiidhinaa waa inaan u kacnaa oo u mudaharaadna oo aan maaragtay shaqooyinka xidhnaa iyaga ugu xun haddii maanta siliin la xidho waxay cunaan 100 shilin cunaan ma helayaan waa inaan maaragtay mudaharaad muujino oo magaalada u baxna oo aan maaragtay shacabkeena u dhiidhinaa haddii damiirka Soomaalinimo iyo diirka Soomaalinimo idinku yaalo haddaysan ka ahayn oo maaragtay maalinta Soomaali iyadoo ay maaragtay isu taagan tahay ay tahay maalinta Soomaali ay tahay oo maalinta maaragtay dhibaatada jirto ayna wax Soomaali ahayn noo sheega Soomaali hadday qabiil u taqaano oo aynan damiirkii kale iyo dadnimadii kale iyo maaragtay waxyaalihii kale ayna lahayn ee dadka wadanada caalamka ay maaragtay dadkooda kala kaga cabsadaan war dad Hindiya inala jooga dad Hindiya wadanka ku dhaqan dadkan Kenyaankii dadka Hindida sida waxay u caabudaan ay sanamta u caabudaan bay u caabudaan way ka cabsadaan sababta uga cabsanayaan ma taqaana waa dad dawladaha isku xidhano maalintii maaragtay ay hal qof oo Hindi la dhibaateeyo ay maaragtay dawladahoodu ka falcelinayaan laakiin anaga dhibaataan haysato dawlad ma lihin
anagii shacabka ahayd baa dowladeeni gacanteena ku burburinayna shacabna malihino anagii shacabka ahayd baa qabiil isku haysan goormaan anaga horumar gaarayna goormaa shacabkanagii iyo dadkanagii dulmiyan aan u dagaalamayna maba jirto dee qof walbaba wuxuu cayrsanayaa noloshiisa nolol maalmeedkiisa markuu helana wuu daba dhisanayaa sidii maaragtay xoolayntii maaragtay roob badan u da-ay dhargeed camal ilaan aqli kale Soomaali ma qabtay marka intaad walaalayo intaad damiir iyo dhiig isku yeeshaan aan iska qabana cadowga